aad baan idin salaamayaa dhalinyaro meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaalkan idiin soo gaari doon waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkayga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda xaaladii ugu dambeysay ee Chiesa iyo Liverpool halka ciyaaryahan Federico Chiesa ay sidoo kale ay xiiseynayso kooxda kubadda cagta Barcelona laakiin Liverpool ayaa wada hadalo toos ah waxay kula jirtaa kooxda Juventus kaasoo ay ku doonayso inay la soo wareegto xidigan Federico Chiesa oo kooxda Juventus gar iyo gardar fasax ka ah sanadkan. Federico ayaa ku qanacsaneen qaab ciyaareedkiisa iyo inuu sii joogo kooxda. Macalinka cusub ee kooxda Juventus Thiago Motta ayaa u sheegayba markii uu la wareegay kooxda Juventus macalinkan in Federico uusan ka mid ahayn qorshihiisa ciyaareed ee sanadka 2024-2025 sidaa darteedna Federico uu ku qasban yahay intuu xirmin suuqa kala iibsiga uu ka tago naadiga Juventus. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa heshiis 4 sano ah waxay u soo bandhigtay ciyaaryahan Federico Chiesa kaasoo sanadkii ku kici doona 5 milyan oo euro. kooxda Juventus ayaana xidigan ku doonaysa lacag gaaraysa 15 milyan oo euro halka ciyaaryahankan Federico Chiesa ay Liverpool ku raadinayso 12 milyan dhibic 7 halka kooxda kubadda cagta Barcelona ay sidoo kale ku soo biirtay xiisaha ciyaaryahankan. Federico ayaa dhaawac kaga maqnaa tan iyo xilli ciyaareedkii dhammaaday kooxda Juventus waxaana dhaawiciisa ka mid ah dhaawac ACL yiraahdo kaasoo dhaawac halis ah laakiin Liverpool ayaa ku kalsoon tam aanshaha ciyaaryahankan Federico Chiesa iyo wararka ay kasoo gudbiyeen dhaqaatiirtiisa marka sidaa darteed Federico Liverpool waxay rabtaa inay soo gabagabayso heshiiskiisa maadaama waqtiga suuqa uu gabagabo ku jiro 30 bishan Agoostana uu xirmi doono laakiin Barcelona ayaa sidoo kale suuqa ku soo biirtay oo raadinaysa xidigan Federico Chiesa maadaama uu yahay xidig top player ah haddana qiimihiisu uu aad u jaban yahay sidaa darteed cid kasta ayaa suuqa ku soo biiri karta haddii aysan dhammaystirin saxiixan ciyaaryahan Federico Chiesa kooxda kubadda cagta Liverpool ma noqon doontaa kooxda ku guuleysata ciyaaryahan Federico Chiesa oo waxtarkiisa iyo awoodiisa aan ognahay inuu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu argagaxsan marka la ciyaarayo garabka midig iyo bidix waa midka hadda Yurub ugu fiican kuwoodii isha lagu qaban karo ama heshiis lala saxiixan karo marka Federico Chiesa Liverpool uu ku dhow yahay walow laga yaabo saacadaha soo socda inay wax isbedelaan oo koox kale ay meesha soo gasho oo qarash badanna ay ku bixiyaan xidigan balse hadda qiimaha uu joogo in ciyaaryahankan Liverpool heshiis 4 sano ah 5 milyan sanadkii waa macquul 99% inuu Liverpool saacadaha soo socda saxiixiisa la maqlo marka aan soo dhaweeyno Chiesa ku soo dhawo Liverpool ayaana ku baahan ayagana waa u baahan tahay maadaama Juventus haddii aad sii joogtidna aad sanadkan dhan aadan garoonka usoo geli doonin macalin Thiago Motta siduu sheegay qorshihiisna aad ka mid ahayn marka go to Liverpool.